ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan wadnaa casharadeenii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca ilaahay ee assalaam oo ah nabadeeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadda asagaa haya, asagaa nabadda qaybiya, asagaana qof walba nabadda meesha uu joogo ku gaarsiiya. waxayna ka mid tahay deeqaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadkiisa ugu deeqay inuu qofku asagu nabad helo, diin ahaan nabad u helo, dariskiisu nabad helaan, dadku la nool yahay nabad helaan, cid kastana uu nabad kula noolaado. sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka nabad noqday ama ka badbaaday, ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cid walba oo khalqigiisa awoodiisa ugu badbaadiyey oo u fududeeyey inay helaan nabad ay ku noolaadaan si ay u gaaraan barwaaqo adduun iyo barwaaqo aakhiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala asagana wuxuu ka nabadgalay wax kasta oo daatadiisa ama sifadiisa ama ficilkiisa aan u qalmin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu addoommadiisana ugu deeqay oo uu siiyey in mar walba ay nabad helaan, oo nabaddu ay u noqotay waxyaabaha asaaska u ah. awliyadiisa iyo addoomihiisa marka uu jannada geeyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi salaamun qowlan min rabbin raxiim. rusushiisa iyo ambiyadiisana waxyaabaha uu ku tilmaamay oo uu ku sheegay waxaa ka mid a salaamun cala almursaliin. nabiyullaahi ibraahimna si gaara buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu doortay oo uu yidhi salaamun calaa ibraahiim. wuxuu kaloo ayagana salaantaas ama nabaddaas uu mar walba ugu celceliyey ambiyadiisa qaar ka mid ah oo uu ka mid yahay nebi muuse iyo nebi haaruun calayhim assalaam, salaamun calaa muusa wa haaruun. ummadda mu'miniinta ahna wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam amray inay dhaqan iyo akhlaaq ka dhigtaan inay salaan ama nabad mar walba isugu naadiyaan, ifshu salaama baynakum, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dadka muslimiinta ah ku dhiirigeliyey inay akhlaaq iyo dhaqan ay ka dhigtaan. waxaa kaloo ilaahay amray marka aad guri timaado oo aad meel soo gasho, fa idaa dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa ahliha, oo ah marka lagu arkaba in marka hore adiga nabad lagaa arko, adiga inaan nabad wadinna ay kaa muuqato. sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu jannadiisa xataa ku ammaanay waxaa ka mid ah wallaahu yadcuu ilaa daari salaami wayahdii man yashaa, oo uu culimmada qaarkood mufasiriinta ay dhaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ah assalaam, jannadiisa wuxuu u bixiyey assalaam. qof kasta oo soo galana waxaa la siiyey salaam oo ah nabad baa la siiyey. ibnu cabaas wuxuu leeyahay jannooyinku waa 7, mid ka midana waxaa la dhahaa assalaam. saa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyinka qaar maadaama salaam loo bixiyey, culammadu waxay yidhaahdeen mar waxaa loogu bixiyey in loo idaafeeyey oo loo tiiriyey ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ah assalaam. marna waxaa loo tiiriyey dadka meesha ku nool waxay iskula hadlaan oo isku salaamaan oo ah assalaamu calaykum. marna waxaa loo tiiriyey maadaama meeshan meeshii lagu soo cuskaday ee lagu soo fariistay ee la yimid ee nabadda lagu raadinayay inay tahay, saa darteed ilaahay inuu jannadiisa salaam u bixiyey. qofka marka bini aadamka adduunyada marka uu joogo, nabaddu waxay u tahay rajo. wuxuu rajaynayaa inuu nabad ku noolaado, wuxuu rajaynayaa inuu nabad gaaro, wuxuu rajaynayaa inuu nabad heli doono. laakiin marka aakhire la tago oo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay uu jannadiisa geeyo, nabaddaasi waxay u tahay waaqic ama xaalad dhab ah oo ay ku nool yihiin oo ay la noolaanayaan. yacni meesha u dambeysay oo nabadda ay raadinayeen bayba tageen. sidaa darteed qofka waxaa laga rabaa muslimka ah inuu nabadda kula noolaado. horta marka koowaad naftiisa, naftaada see nabad kula noolaanaysaa? waa inaad ka fogeyso wax kasta oo culimmadu ku sheegeen ashahawaat washubahaat. wax kasta oo caqiidadaada tashwiish kaa gelinaya ama kaa wareerinayo inaad marka hore naftaada ka tirtirto. wax kasta oo hawada naftaada iyo damacaaga ku hagaya ee sabab kugu noqonaya inay haadaan kaa tuuraan, waxaa laga rabaa inaad naftaada ka nabadgeliso. waxaa kaloo la rabaa naftaada inaad ka nabadgeliso xiqdi iyo xumaan dadka inaad u qaado. sidoo kale akhlaaqdaada iyo anshaxaaga shakhsigaana wax kastoo xumaana inaad ka nabadgeliso. meeshaasaad waxaa gaaraysaa marka inaad adiga nabad iskula noolaato oo aad naftaada nabad kula noolaato. wuxuu sheegay sheekh shacraawi
markii uu fasirayay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi wuxuu yidhi kaas waxaa laga hadlayay in adiga dadka kaa nabad galaan ka waran buu yidhi haddii naftaada ay adiga kaa magangeli weyso yani waa hadal aada iyo aada u qiimo badan adiga waxaa lagu amray dadka inaad nabadgeliso muslimnimadaada ku xiran toosnaantaada ku xiran laakiin sheekh shacraawi wuxuu ku daray haddii adiga naftaada ay kaa nabadgeli weyso ka waran oo loola jeedo inaad shahwadeeda raacdo hawadeeda raacdo damaceeda aad raacdo midda labaadoo lagaa rabo marka adiga naftaada la heshiiso oo aad nabad kula noolaato waxaa waaye inaad qoyskaagana nabad kula noolaato oo familkaaga nabad kula noolaato oo xaaskaaga nabad kula noolaato oo caruurtaada aad nabad kula noolaato ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu faina allaha gafuuru raxiim culummadu waxay yidhaahdeen qofka familka mas-uulka ka ah waxaa meeshan loo sheegay 3 shay oo isdaba socota inta 3da shay aan loo sheeginna waa loo digo waxaa lagu dhahay cadaawadda iyo cadowtinimada familkaaga iyo caruurtaada kaaga imaanaya ka digtaano laakiin xalkaa loo sheegay marka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay halkaa ku joojiyaan oo layidhahdo caduwan lakum faxdaruuhum halkaas lagu joojiyo laakiin ilaahi subxaana watacaala xalkiibuu ku daray xalkuu ku darayna muxuu ahaa marka koowaad familkaaga caruurtaada xaaskaaga qoyskaaga aa la nooshahay wixii ay shalay khaldeen ama khaladaad ay hore usoo sameeyeen isku day inaad ka cafisid marka labaad ay khalad sameeyaan oo aad ku aragto ayagoo khalad sameynayana isku day inaadan xasuusinin khaladka ay shala galeen waa safxiga inaa wixii lasoo dhaafay aad dhaafto guryaha kuma dhismaan inaad tiraahdo shalay waxaana samaysay shalay dembigaasaa gashay taasi waxay dhaawacdaa dareenka qofka hadday tahay xaaskaaga waxay kaloo dhaawacdaa dareenka ninka laftigiisa haddii gabadha laftigeeda ay ninkeeda hadallada noocaasoo kale ah ay ku tiraahdo caruurtuna waa la mid oo waxaa la rabaa inay kula noolaatid wixii shalayna inaad iska cafiso haddana haddii khalad uu galo inaadan dib ugu laabanin wixii lasoo dhaafay waxaa kaloo la rabaa inaa wixiina cafiso almaqfira inaa u dambi dhaafto waxa meesha ka dhacay inaad ka boodo oo aad samayso maxaa la rabaa marka qoyskaanu si uu isku haysto oo nabad u wada noolaado inay ku wada noolaadaan alcafwu wasafxu walmaqfira 3daas inay ku wada noolaadaan baa laga rabaa macnaheedu loolama jeedo khaladka caruurta ma saxaysid loolama jeedo khaladka familkaaga ma saxaysid laakiin waxaa la rabaa dhismaha iyo tiirka si aad nabad adigana u hesho nabadna ku wada noolaataan waa in reerkaasu ay ku dhisan yihiin inaanan mar walba laga shaqaynin shalay waxaasaa samaysay maanta waxaasaa samaysaa darteed qoys degan haddaa aragto waa qoys mar walba nolosha ka fiirinaya sida ugu degan ee ugu wanaagsan ee beri mustaqbalka loogu sii gudbi karo intaa haddaa samaysa marka adigana maxaa helaysaa waxaa helaysaa ghafuuru raxiim inuu ilaahay subxaana watacaala dembi dhaafaha ah oo naxariista badan juhdigaas aad reerkaaga iyo caruurtaadi gelisay inay adiga kugu soo laabato oo aad dembi dhaaf ku hesho intaa markaa kasoo gudubto waxaa la rabaa mujtamaca muslimka ayaad la nooshaa inaad nabad kula noolaato oo aad nabadda see ugula noolaanaysaa nabiga sal alay slam waa ka yiri ifshu salaama baynakum assalaamu calaykum dadka ku dhahdhaha maray kaasoo baxaan keliya ma ahan waa laga rabaa inaad assalaamu calaykum tiraahdo salaanta islaamka ku salaanto waa laga rabaa laakiin xadiisku wuxuu ka hadlayaa waxaa waaye inaad nabadda faafiso nabadda see ku faafinaysaa waa in qof kasta oo muslim oo kaasoo horbaxay horta adiga aad isu diyaariso inaad qofkaa nabadgeliso marka labaadna waa inaad adiga ku faraxdo markaad aragto qof walaalkaa ah oo nabad ku nool oo wanaag haysta oo barwaaqo ku nool marka saddexaadna waa inaad dhaqankaaga iyo dabcigaaga uu abuurayo hab qof kasta oo kaasoo horbaxa uu dareemayo nabad uu kugu dareemayo marka waxaa la rabo waxaa weeye qof walba inuu asagu qaato mas-uuliyadda bulshada ka saaran ee ah inuu nabadda faafiyo waxaa kaloo lagaa rabaa markaad kasoo gudubto bulshada inaad ummadda oo dhan bini aadanka oo dhan inaad nabad kula noolaato waata ilaahi subxaana watacaala uu leeyahy walaa taquuluu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'minan oo ah qofka adiga hadduuba nabad ku tuso hadal wanaagsan uu ku tuso oo si fiican kuu salaamo adigana si fiican u salaan cid kasta oo kula hadashana salaam fiican iyo hadal fiican kula dhaqan nabadna kula noolow waxaa kale xataa laga hadlaa qofka kugu soo xadgudba asaga laftigiisa inay waxyaabaha kuu furan waxaa ka mid a inaad nabad kula noolaato masiixiyadu waxay qabaan haddii dhabankaaga midig la dharbaaxo dhabankaaga bidixda u dhig oo ah waxba talaabaha qaadin oo mararka qaar ku gaarsiinaysa inaad dulli aqbasho laakiin qofka kugu soo xadgudbay islaamka wuxuu u sameeyey qawaaniin qaanuunka koowaad waxaa waaye faman ictadaa calaykum factaduu calayhi mitli ma ctadaa calaykum wajazaau sayi'atin sayi'atu mitluhaa
qofkan haddii uu adiga xadgudub kugu sameeyo waxaa kuu furan xadgudubkaas mid la mida inaad ku samayso waa kuu furantahay adiga oo aanan xuduudda ka baxaynin oo qof wax yar ku taabsiiyey wax asaga ka tan weyn oo ka badan inaadan u geysanaynin waxaa kaloo kuu furan inaad cafiso haddaa laakiin rajaynayso cafiskaas inuu ku fiicnaanayo faman cafaa wa aslaxa waad isleedahay markaa cafiso qofkan uu xishoon doonaa akhlaaqdiisaa celin doonta qofkaasna asna waxaa laga kuu furan inaad cafiso saa darteed islaamku wuxuu ku siinayaa inaad adiga maamuuskaaga magacaaga iyo awooddaada aad qiimo leh aad u isticmaali karto waxaa kaloo la rabaa inaad diintaada nabad kula noolaato see diintaada nabad kula noolaanaysaa ilaahay xaqa uu kugu leeyahay inaad bixiso ilaahay inaad towxiidkiisa qirto shirki aadan samaynin ambiyadiisa iyo rusushiisa siday u dhan yihiin aad wada rumayso laa nufariqu bayna axadin min rusuli waaridkaaga iyo waajibka kaa saaranna inaad gudan karto oo aad waajib ilaahay subxaana watacaala uu ku saaray oo xaqa labaad ah oo xaqa ilaahay kusoo xiga ah inaad cadaaladda ka shaqayso inaad dulmiga aad ka hortagto in cid kasta oo kuu gardhigato aad si cadaalada aad kula dhaqanto taa waxay ku keenaysaa marka adiga inaad awood u yeelatid inaad diin ahaan aad noqoto qof ku nool barwaaqo iyo nabad ku nool inaad noqoto sidaa darteed qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu qofnimadiisana ceebta ka dhowro ummadana uu nabadda la raadiyo naftiisana uu nabadda ku dhaqo ilaahay subxaana watacaala nebiyada qaar wuxuu gaarsiiyey meelaha ugu sarreysa ee qofka bini aadamka uu nabad uga baahan yahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku dhahay wasalaamun calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcathu xaya sufyaan ibnu cuyeyna aayadda markuu fasiraya wuxuu dhahay qofka bini aadamka ah waxaa jira 3 meelood oo uu uga baahan yahay yacni uu ku jiro xaalad mugdi ah oo rafaad ah oo waxa ku xiga uusan garanaynin nabiga marka waxaa la siiyey inuu 3diiba ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka siiyey nabad midda koowaad waxaa waaye qofka markuu dhalanayo waxay dhaheen wuxuu ka soo baxayaa caloosha hooyadiis meeluusan garanayn buu usoo baxayaa meeshaas ilaahay nabad buu ku siiyey meesha labaadna waxaa waaye markaad dhimato waxaad arkaysaa waxaadan hore u arkin waxaadan hadda annaga aanan garanaynin oo qofka markuu dhinto uusan horey u arki jirin buu arkayaa ayadina ilaahay nabad buu ku siiyey midda labaadna waa yowma yubcath markii khalaa'iqdan dhan intay dhintaan ilaahay subxaana watacaala uu soo saarayo marka la soo baxayana ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku siiyey nabad saa darteed haddaad rabto inaad meelaha aad adag aad nabad ugu noolaato waxaa la rabaa adigana inaad naftaada nabad ku hayso ummadana nabad siiso nabadana qaybiso والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيد اللواستيني وحبا كما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مغا إيسو ووارسان دمانا